يا حافظ القرآن هاكم فرحة فقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. يا حافظ القرآن هاكم فرحة فقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. وقضيتم الساعات في آياته ترتيلكم نبض بكل مكان. همم تفاخر أمتي بسموها وعلوها عن لوثة الأدران. لا نوم يغريكم ولا لهو ولا لعب مع الأنداد والأقران. بل كان يجذبكم كتاب محكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذ السلام يا دمانتي سلامة الإسلام كان إذنكم السلام يا waxaan idinka cudur daarayaa kullay waqtigii aanu idin qabanay oo aan kullay haddana aad muddo inaan dib uga dhacnay cudurdaar raalli baa naga ahaanaysaan. waayo barakallahu fiikum odayaal iyo culimo iyo xildhibaano iyo mas'uuliyiin intaba oo u yeedhnay. laakiin waxa weeye hawsha oo iskale waxaan ku gadhaa dib dhaceeda oo waxa weeye bilaadan aynu nahay. marka intaa waa idinka cudur daaraynaa insha Allah in raalli naga ahaataan. dadkii inta badan noo fadhiyay ee sugayay khayr baynu inta idin rajaynaynaa. waayo boqcadaynu fadhina waa masaajid. waxa weeye inta fadhidaan ajar baa idinku jira. waxa weeye salaada ku tukateen iyo wardiga ku wadeen khayr Allah idin siiyo miisaanka xasanaadka Allah idin saaro. ma hadda koobaad ilaahay baa leh. ilaahay baa ma hadda koobaad aynu mahad celinaynaa. ma hadda labaad waxaynu mahad celinaynaa madrasada al-Bushra oo soo qaban qaabisay yani xafladan quruxda badan inoo soo qaban qaabisay iyo waalidiintii iyo macallinkii maamulaha u ahaa iyo ardayda xafladan maanta aynu fadhina qiimaha badan leh. xaflad la fadhiistay xafladii ugu khayrka badnayda quraanka kariimka dhamaysay ayaynu mahad celinaynaa u ducaynaynaa in iyagana ilaahay quraanka ku sugo. ciidii waalidiinta hayda ku tacabtayna ilaahay tacabkooda u xasiliyo. macallinkii awoodda soo geliyay ee juhdiga badan ku bixiyayna in ilaahay isagana miisaanka xasanaadka u saaro. cimrigiisana ilaahay dheereeyo in ilaahay uga baryayna. waxa aynu dhiibaynaa isagana kelmadiisa oo ay xafladan inooga warrami doona iyo kulli madrasadan maanta xafladan inoo soo qaban qaabisay khayr badan aan ku tuhmayno. insha Allah ilaahay khayr u rajaynayno. macallinkeena weyn Salabaan Maxamuud Reegal
oo waxa weeye madrasada maamulaheeda ahaa la wada garanayo maanta aan sharax iiga baahnayn inaan maanta goobtan ku sharaxo anaan ammaanaynin taskiyeynaynin laakiin dee uu mudan yahay maanta uu naga mudan yahay inaan kelmado iyo wax ka badan ba aan u idhaahdo ama aan hadlo waayo aqoontaan u leeyahay iyo waxa weeye inta aan ka aaminsanahay waxa weeye ayaan anaan ku dheeraanaynin aan u dhiibayaa su taariikhda madrasada iyo qabanqaabada xafladda iyo nidaamkeeda iyo mahadcelin martida u timi u mahadceliyo ayaan macalinkeena weyn u dhiibayaa macallin ku soo dhawow salaan ka bacdi culimada madaxda dhaqameedka waalidiinta ardayda iyo marti sharafka ka soo qayb galay xafladan guriga ilaahay kamida gurihiisa oo barakaysan oo masjid nuur la yiraahdo waxaan markaa leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala farxadda nagala soo qayb gasheen ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaageeda iyo khayrkeeda iyo xasanaadkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka siiyo fadli iyo wanaag iyo xasanaad iyo khayr waxa mar labaad farxad noo ah anigoo ah maamulaha madrasada البشرى oo taariikhdoodu muddo dheer ay soo socotay laga bilaabo 1987kii ay taariikhdeedu ay bilaabantay maantana ardaydii ugu horeysay ay markii la qaxayay dadka in badan oo kamid ah dhalinyaraha garan maayaan ay ardaygii ugu dambeeyay ee ka dhameeya madrasada oo maanta isagoo cirale uu magaalada Burco joogo isagoo dibadda ka soo noqday oo ku farxay madrasada wanaaga iyo khayrka iyo hawlaha dacwaadka ay ka socoto waxaan mar labaad mahadnaqayaa xildhibaanada iyaga laftoodu nagala soo qayb gala dacwaadka khayriga iyo madaarista hormoodkooda oo iminkana uu nagala joogo xildhibaan Khadar Nuux iyo dakaatirada ay kamid yihiin Dr. Sheikh Hassan Sheikh Ali Warsame oo isna iminka inoo iman doona insha Allah daqiiqada ka bacdi oo inooba yimiba iyo rag kale oo hogaaminayo iyo ardaydii madrasada raggii waaweynaa rag badan oo waaweyn oo kamid ahaa Sheikh Maxamed Sheikh Ali Mawlid laftiisu oo isaguna maanta marti inoogu ah kana yimi UK ka yimi oo isaguna kamid ahaa ardaydii madrasadu markaas muddada inta leeg oo 30 sano iyo dheeraadka ayay soo taxnayd midhona way soo saartay maanta falillahi alhamdu oo wax ilaahay loogu mahadnaqo markhaatina dooni mayso markhaati waxa ugu filan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka bacdina mujtamaca laftiisu deemarag buu ka yahay malaa beryahan dambe da'dii oo igu soo baxday iyo gaabis fara badan oo igu dhacay iyo dadaaladii faraha badnaa oo aan sameey jiray oo laftooda aan gaabiyay ayaa malaa aqoonsibaad kullee waa dhacayaaye waanu dadaali doonaa insha Allah taana madrasadu ilaa xilliga aan taariikhdeeda aan dii sheegay 87kii laga soo bilaabo ilaa maanta oo 2017 aynu taaganahay ilaa maalinka waa dacwadda ayay qayb ka ahayd waxaan mar labaad haddana u mahadnaqayaa waalidiinta nugula garab jooga ina garab taagan markaas ardayda nala ilaalinaya nala daba socda na saacidaya nagu kor jooga kuwa iyaga laftooda mahad ayaan markaas u mahadnaqaya waxaan kale oo u mahadnaqayaa laftooda jaamacatu najaax oo ah jaamacadna islaamiya oo iyada lafteedu madaarista horumarkooda iyo ka qayb qaadashadooda oo hormoodadooda uu nagala joogaan maanta Dr. Hassan Sheikh Ali iyo ardaydeeda lafteedii jaamacadda
oo dhinacna macallimiinka dhinacna ardayda laftoodu ka ah oo iyada lafteedu jaamacadaha na garab gala ee na garab siiya ee haday seminar tahay iyo kor u qaadis haday tahay xagga dacwadda iyo diinta iyada lafteedana jaamacaddana waanu soo dhaweynaynaa waana garabsanaynaa waxaan kale oo mar labaad haddana u mahadnaqayaa ardayda oo ah arday runtii madrasadda arday aad u qiimo badan oo aan doonayo waliba maanta in ducada nalagu miiso oo muhiimadda ugu badan ay tahay ducada in loogu duceeyo keli iyo mujtamacba in loogu duceeyo si waalidka iyo diinta iyo dalka iyo dadkaba ay u anfacaan naloogu duceeyo ayaanu iyadana aan marti idinka nahay waxa aan codsanayaa waalidka soo xaadiray jamaca khayrka ah ama xafladan barakaysan ee maanta masaajidka Masjid Nuur aynu ku qabanayno waxaan markaa aan waalidka ka codsanayaa inaan ardaydaas laygu dayicin layguna sii daynin way dhameeyeen aan alla oran laygula garab galo laygu garab joogo laygaga warhayo laygula ilaaliyo ee laygula joogteeyo wixii tacab ay u baahan yihiinna lagu saacido ayaan markaa idinka codsanayaa waalidka oo ardaygu uu dhameeyay imika waa khatmi way dhameeyeen kor orod baa la yiraahdaa akhtaa badan baa dhici karta in dib loo wada saxal la doonaya cilmiguna matiga quraanka oo la qaato kaliya maaha waalidka waxaan ka codsanayaa inaan loora inankii waa dhameeyay oo aanu saaygaga tagine inaan wixii aqoon ee kalena u sii kordhiyo quraankoodina ay dib u xifdiyaan una ilaaliyaan layguna ilaaliyo aan ubadkana lagu sii dayn way dhameeyeen laygula garab galo taana waalidkan waa ka codsanaya waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkii waan badiyay ee taariikhda madrasadda intaas ay idinkaga filan ardaydana kelmadeeda intaas ay idinkaga filan waxa aan leeyahay waalid mar labaad aan waana dafcadani waa dafcadii koob iyo soddonaad weeye ee markaa ka qalin jabisa weeye iyada oo waqtigii ayna kamaradaha iyo aalaadkan dee wasaa'il ijtimaacigu u yaraa in badan oo kamidina oo dafcado badan oo kamidina kamaradii cadaaba iga raaceen oo tirada kuma antarin waan ka dhex saaray dhawaan baan ka bilaabay waa intaasi waa inta waxaan u mahadnaqayaa bahda saxaafadda gaar ahaan Ariel TV madaxeeda maxay tahay oo isagu inala jooda madaxa gobolka u qaabilsan Axmed Jookar oo runtii bahda saxaafadda gaar ahaan waliba Ariel TV oo ka qayb qaata horumarinta xafalaadka noocan ee khayriga ah ka qayb qaata Ariel TV waa mahadnaqayaa shaqaalihiisa min madax ilaa halka u hooseeya waa mahadnaqayaa mahadnaqa gaaran siinaya waayo waa ka qayb qaataan musaacadaad badan bay noo fidiyaan madaarista iyo markaa waxyaalaha dacawaadka ah waa ka qayb qaataan waan salaamayaa bahdaas gaar ahaan Ariel TV sida uu noo saaciday iyo si wax noola qabto iyo sidoo noo kaaliyo waan mar labaad iyo mar saddexaadba waan mahadnaqayaa waxaan kale oo aan u mahadnaqayaa waxa jira iyaguna shirkad badan oo iyaga laftoodu dacawaadka ka qayb qaata sida shirkadda Barako company oo kamid yahay shirkadda Heeko masaajidkana deejar la ah runtii dacawaadka laftooda ka qaybta iyagana waa u mahadnaqaynaa shaqaalahoodii ama odayaashoodii qeyr kamid ah waxaan u maleeynay nagala joogan waxaan kale u mahadnaqayaa dawladda hoose lafteeda oo iyada lafteeda baryahan dambe iyaga laftoodu musaacadaadka xagga markaasi quraanka ka caawiya gudiyada iyo madaxda qaban qaabisa hawlaha tartamada iyaga laftoodu ka qayb qaata duqa magaalada iyo xildhibaanada iyo ku xigeenadiisaba iyagana waa u mahadnaqaynaa waxaan ku soo gabagabeynayaa ardayda hana loogu duceeyo kuwan iyo kuwa ku soo daba jira iyo ardayda guud ahaan in loogu duceeyo ayaanu ka codsanaynaa waalidiinta iyo marti sharafka iyo culimada hana loogu duceeyo ardayda ubadkii in badan oo kamid ah cabanaysa ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa inuu kuwii maxay tahay halka ka sii wada
ee shaydaan iyo wixii shar la sharkooda ka nabad gala inuu ilaahay nooga yeelo sallallahu ala muhammad salaamu alaykum sheekh maxamed sheekh cali mawlid ayaynu bal u dhiibaynaa isagana inuu kelmad ina yiraahdo insha Allah dawladda doctorkeeni baa inala joogaan u dhiibaynaa insha Allah warta waa wada salaamantiin barakallahu fiikum waxa maanta sharaf weyn ii ah oo aan soo koobi karayn waxaan ku iraahdaa inaan halkan garab fadhiyay macallinkaygii aad iyo aad ka qiimaha badnaa sheekhaygii subhanallah waxa laga yaabaa arday fara badan inay ila qirayso ardaydaasi ha ahaato ardaydii hore ee malcaamadda dhigan jirtay ha ahaadeen ardayda maanta dhiganaysa malcaamadda iyo kuwa mustaqbalkaba iman doona way ila qirayaan dhammaantood iyo waalidiinta halkan fadhidaaba iyo culimada halkan fadhida ee macallin Saleebaan sida qotada dheer u aqoonta ugu leh macallin Saleebaan ma aha macallin kaliya macallin Saleebaan macallin ma aha waxa weeye waa macallin iyo ziyaada weeye waa waalid weeye waa aabba iyo hooyo isku jira weeye macallin Saleebaan waa murabbi weeye macallin kaliya ma aha habeen dhaweedaanu sheekh Cabdullaahi Baashe masjidul Rahma wada joognay oo aan ku yiri macallinkaygan halkan kula ballansanahay waxa uu igu yiri hadal aad u cajiiba waxa uu igu yiri macallin Saleebaan waa uu naga duwan yahay buu yiri anigu macallin baan ahaa buu yiri sheekh Cabdullaahi Baashe oo wada garanaysaan waxa uu yiri macallimiintayada ardayda waxaanu bari jirnay quraanka suti gaashaana waan u hayn jirnay macallin Saleebaan waa naga duwanaa macallin Saleebaan ardaydiisa kubaddu ciyaarsiin jiray quraan kaliya uma dhigi jirin markaasaan waxaan ugu daray sheekh Cabdullaahi waxbaan kugu darayaa baan ku yiri macallinka kubadda kaliya nama ciyaarsiin jirin baan ku yiri macallinka calooshayda markay gaajoonayso uu ka warhayn jiray waxaan ku yiri hotelka Badar soo garan mayst restaurant madcam Badar ma garanaysaa baan ku yiri haa buu yiri waxaan ku yiri buugga macallinku maftuux buu ahaa ragga iyaga ardayda ah oo anagu aan ku jiro Cabdiraxmaan Muuse Ismaaciil Kaysanu Cabdirasaaq Kuraame Asayr iyo rag fara badan oo groupkayga kamid ahaa waxaanu sameyn jirnay inaanu restaurant-ga soo galno markaanu soo galno aanu iska cunno half iyo hilib dabeedna markaanu baxayno waariyaare waa lacagtiba markaas buugi macallin Saleebaan soo ma yaala ha ku qor macallinka oo ka bixi jir macallin Saleebaan waa macallin iyo badway macallin Saleebaan sidoo kale waxa weeye waa murabbi tarbiyadiisu mid ay xad leedahay maaha marka maanta sharaf aad iyo aad u weyn bay tahay inaan arday ka soo baxday malcaamadii al-Bushra aan halkan xafladoodii aan u fadhiyo anoo culimadii wadanka iyo aqoonyahankii iyo Dr. Xasan oo sheekhaygii asaguna ah Dr. Xasan saaxiibna waanu nahay sheekhaygina waayahay waxa weeye markaan Madiina joogay anoo aan waxba garanayn baan xagga ay Ingiriiska ka yimi sheekha de kutubtii iyo cilmigii waxaan iri sheekho ugu shub ilaa markaynu yaryarayn asagu de marka asagoo xaafida buu burcad ugu yimi doctorku annaguna waxaanu ahayn dufcadii ugu horeysay taariikhda maanta wala xusaa waqtigeeda annagu waxaanu nahay ardaydii ugu horeysay marka wadankii lagu soo noqday 1991kii dufcadii ugu horeysay ee quraan burcad ku dhamaysa baanu ahayn cid naga horeysay ma jirin qof dibadda kala yimi mooyaan doctorka soo horeeyay xifdigiisu waasid asagoo xaafida buu wadanka noogu yimi magaalada burcad noogu yimi doctorku marka waxaan idin xasuusinayaa aniga Dr. Xasan taariikhdan isku leenahay saad u garataan masaajidka dhuurta minaaradiisa ayaanu ku subcin jirnay quraanka intaanu al-Baqara ka soo bilowno anigu de barbarad baan marka ahaayo markaasaan quraanka dhameeyo oo igu cusbaayo oo la ku fikirci laakiin doctorku alxamdulillah asagu de kal faatix ayuu ahaa kelmadan marka taariikhdan xogaa idin la yara xusaya maanta waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah annagoo suuratul a'raaf akhriyayna ayaa aayad aakhirkeedii ayaan anigu akhriyo markaasuu doctorku igu qabtay markaasuu sida saxmay ku celi markaasaan waxaan ku yiri
haddii aanay sida ahayn aniguna danin marka quraanka xifdiyay baan hoo waan isla weynaayo waxaan isleeyahay quraanka xifdigaaga cidi kama taqaan doctorkaagu war aayada sida ma dhamayska iska saxsaxay markaas aan ku yiri haddaanay sida ahayn kitaabku noo xiriyay haddaanay sida ahayn anigu muslim ba meehi baan ku yiri markaas war iska hubso markaas war anigu muslim ba meehi haddaanay aayadu sida ku dhamaan dabadeedna markaas yiri kitaabka daba inuu fur labadayad ya casar dabadii way xaq saran isku haysanaa moogti kitaabkii waan furnay kitaabkii markaan furnay doctorku sidoo yiri bay noqotay markaas yiri wariya dad muslimteeda baalka ka cusub iskala ka kac in bakara shahaado mar labaad soomaaliga hadaba dib u shahaado la wadaga diinta ka baxay marka waxay ku tusaysaa dadku markay yaryar yihiin quraanka bartaan xifdigooda cusub yahay inay wax badan u baahan yihiin in quraankii maxaan ku raada laga saxo marka waxaan taageerayaa kelmadii macallinku markii dhaweyd ku soo gabagabeeyay waalidiinta waxaan ku oranayaa idinku aad iyo aad u mahadsan waad soo dadaasheen kelmadan waalidiinta ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay waalidiin quraanka marka ardaygu uu dhameeyo waa bilow waa inaad la socotaan waa ardaygu waa bilow waxaan marka ku soo khatimayaa waalidku ahamiyada uu leeyahay ardaygu markuu quraanka dhameeyo waa inuu la garab taagnaado quraankii haddii malcaamadii uu ardaygu ku sii jiri karaya waa inuu ku sii jiro waalidku ku sii hayo macallinka yiraahdo ka warhay hadaan asagu ka warhayn karayn anigu markaan quraanka dhameeyay baan ingiriiska aaday haddii waalidka ama aabuhu aanu xil iska saarin quraanka maanta anigu quraanka maan hayeen markaan wadankii ingiriiska tagay aabahay wuxuu dareensanaa quraanka inaan markaas soo dhameeyay aan ku cusbahay muxuu markaas sameeyay waxa uu sameeyay inuu maalintii yiraahdo quraanka qayb kamida ka dhigay waxaan ku bilaabay haafa juz inaan ka baxo quraan juz barkii aaba aan ku akhriyo dabadeedna waxaan u gudbay juz inaan ku akhriyo maalintii dabadeedna waxaan u gudbay laba juz inaan maalintii ku akhriyo markii dambe waxaan u gudbay inaan saddex juz ku akhriyo every day marka macnaheedu maxay taasi waxay iga caawisay in aan quraanka xifdigiisii aan sugo taasoo markii dambe ii suurta gelisay inaan 1997kii 21 sano ka hor inaan ka qayb galo tartankii loo qabtay UK ee quraanka competitionka dabadeedna alxamdulillah aan ku guuleystay number 1 waxay marka ku tusaysaa waalidku ahamiyada uu leeyahay marka waalidku waa very important haddaad rabtaan in inamada malcaamadda ka baxaya inay noqdaan inama wadanka competitionka quraanka number 1 ka noqda inaad insha Allah taala aydan oran quraankii waa ii dhameeyay ee inaad insha Allah taala macallinka la fariisisaan oo aad tiraahdaan quraanka ka dhageysta juz iyo 2 iyo 3 juzba maalintii ka soo baxay inanka asagoo malcaamadda wali sii jooga marka insha Allah taala aad baan uga xumahay hadalkii baan idinku badiyay waxa weeye de ingiriiska ka imo hadalkuna way ugu yara batay raaliga hada af Soomaaliga haduu rakaaka lahaa raalli ka noqdo waa ingiriiska uu yara badnaayna wax ku sheegay mahad celina in mahaamil miisaanka xasanaadka u saaro kulli raalli ahaada waqtigu kulli way nagu yar inaan soo ururinayno ku dadaalayna imkana waxaynu dhiibaynaa doctorkeena Dr. Xasan Sheekh Ali Warsame oo ah mas'uuliyiinta jaamacatu Najaax dad culimadeena waaweyn gobolkana kamida suuqay dareenkiisa inoo qaato xafladan iyo qiimaha ay leedahay inoo dareensiyo doctorkan kalmada ku siinaya aysan محمد وآله وصحبه أجمعين وقرأي وحنا مهد علينا الله سبحانه وتعالى إنه نعمين إن سوكه بكريم سيد الله سبحانه وتعالى وتلمامي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأي كم التهي ما أنت النور كان يا خير كان ينكسو قلنا هاي أدينا معلمين تهي يا الدعاة يا علماء يا والدين يا أبدك وحوي قرآن كلا بري بيتك الله يقول يا الله إنه كسرنا هاي أينو ماموس أينو وحوي لن يرضى كتابك الله سبحانه وتعالى دميي ووحل سبحانه وتعالى لقم هذا عليه ما أنت وحل لي هاي مدرسة قوله كوبي سجاشة كي لقى صوب بلعبه ويسقوا كبحي وأنا أقول عن مرخاتي وهي حلق القرآن كان لسه عليه يا إلا ما أنت إنه ضد صوص صارينه وحوي عند السوق بكريم ضد كنوع عاسنا وحوي ده وحي كلا يشن مستويات كلا دول ضد وحوي علماء النقضي ضد نقضي معلمين قرآن ويقولون ضد خسيب برية ضد سيدا الشيخ محمد عالميين نقضي إنجليز بوحكوا عادية ما عنده نيجيريا يوتي ما كدم بيسنا شرملك دوني ذا يوروب يا إيشيا يا أفريقيا أف إنجليزي سوكم محاضرين ليس لسه في عربي دي يا صومالي أيو الدنيا أتجا هل كي كبلا وانتينا توا مدرسة دامات هاي نفردينه ميله هدي
maanta waxaa laga goosanayaa meelo badan casharadii luqadda caalamiga uu ku duubay dunidoo dhan baa lagala socdaa waxay ku tusaysaa waxa weeye muuqaalkeedu ha iskaba koobnaado burcay ku taallaa macallin saleebaan cidina garan mayso ilaahay baa garanaya laakiin midhaheedana meelo badan iyo luqado badan baa waxa weeye lagaga faa'iidaystay waxaan anigu aad iyo aad macallin saleebaan intaan ka ogaa qadiyadda uu ku sheegay waa mid lagu sheegay waana midaan kula talinayo maanta macallin saleebaan iyo jiilkiisu waa sii socdaan siduu haddaba isaguba ka dhawaajiyey 30 sano iyo ka badan hadduu soo waday cid waliba way qiyaasaysaa inuu hadda majaalka ka sii baxayo oo uu ku sii dhow yahay xilligii uu nasan lahaa uu ku sii dhow yahay laakiin muhiimadda meesha taallaa waxay tahay xilligaas hawsha uu macallin saleebaan qabanayay maanta looga baahi badan yahay maanta waalid iyo macallinba waxaa looga baahan yahay dhaqanka macallin saleebaan in la qaato ubadkii lala saaxiibo qur'aanka la jeclaysiiyo dagaalka iyo hiifidda iyo dhangadda iyo qur'aan nacaybka la wado inaynu aad iyo aad uga hor nimaadno xagga kalgacaylka iyo waanada iyo la saaxiibka iyo la fadhiisadka u sheekaynta waxyaabaha noocaasa iyo dhiirigelinta mawduuca noocaasa inaynu aad iyo aad u xoojinno waayo dagaalka inugu socdaa aad iyo aad buu u ballaadhan yahay tiifiyadu waxay afuufayaan internetka waxa ka socda saaxiibka xun colaado badan baa inugu socda iyo hagardaamo badan baa ubadkeenna ku socota darsiga aynu maanta ka qaadanayno macallin saleebaanna taariikhdu ay u qorayso aniguna aan shaahidtu u ahay cabdulaahi baashana hadda laydinka sheegayay waa in markuu ardaydiisa la saaxiibay ilaa hadda ardaydiisa inay isku xidhan yihiin meelay gaadhaanba dunida ardaydiisa weli waa saaxiib kuwa uu hadda hayana saasuu saaxiib u leeyahay niyaddana waa u dhisaa darsiga noocaasa in aad iyo aad macallimiintu uga qaataan oo hadda aad loogu baahan yahay waa midaan aad iyo aad ugu talinayo qadiyadda labaad waxaad mooddaa waalidiintu in badan oo ka midi qur-aanka waxay ka dhigteen ku meelgaadh intaa ilmuhu yar yahay in waxa weeye lagu ilaaliyo lagu celceliyo madrasadda hadhowna markuu qur-aanka dhammeeyo ama meel uu ka gaadho in waxa weeye madrasadii laga fogeeyo ama waxyaabo kale lagu mashquuliyo waxaan waalidiinta u soo jeedinaya ilmaha loo aayayo mustaqbalkiisa ilmaha meel wanaagsan gaadhaya diin iyo adduunyaba cilmi diinad iyo cilmi maadi dhaqankiisu hagaagsan yahay xaaladiisa nafsi ama psychology ay wanaagsan tahay caqligiisu uu kobacsan yahay xifdigiisu uu ballaadhan yahay garaadkiisu uu sarreeyo akhlaaqdiisu ay hagaagsan tahay waa hadba qur'aanka alle subxaanahu wa tacaala inta uu ka qaato iyo inta lagula dadaalo iyo inta uu ka hayo iyo inta uu la nool yahay ta noocaasa in maanka iyo maskaxda la gashado oo maaha markuu qur-aanka dhammeeyo in la yidhaahdo qur-aankii buu dhammeeyey waxaanu u banbaxaynaa howlahii kale tacabkii macallinku geliyey iyo kii waalidiintu geliyeen iyo saamaleylkii ilmaha yar ku dhacay ee qur-aanka xifdinayay in laga dhiga biyo coldhaanshay oo la baabi'iyo oo markuu 2 sano iyo 3 sanoba secondary-ga u galo uu yidhaahdo qur-aankii bari hore ay ugu dambaysay ta noocaasa waxbaa laynaga weydiinayaa dhammaan mas-uuliyadda ugu horeysana waalidkaa iskale waayo macallinku waajibkiisi hadduu gutay wuxuu sugayaa ilmihii in jaanis loo siiyo si uu qur-aankii ugu sii muraajaceeyo taladayda waxaan aad iyo aad ugu sii xoojinayaa waalidiinta qur-aanka inaanay kala hadhin ubadka inay jeclaysiiyaan waxyaabahay ku jeclaysiinayaan waxaa ka mid ah guryaheenna inaynu ka dhigno guri qur-aan oo ilmihiina haddaad qur-aankii ku waaninayso oo labadii waalidoo musxaf baana haysan oo guriga aan kitaab ku kala furayn aanu arkayn wuxuu isleeyahay adigaa jar lagaa tuuraya waalidiintu hawlo kale iska wataa qur-aankii baa la nacsiinaya afkaaguna waa ugu yeedhaya ficilkaaguna waa ka reebaya guryaheenna waa guryo qur-aan inaynu ka dhigno ayaynu insha allahu tacaala u baahannahay waxaan kelmaddeeda kaga baxayaa maanta dadka inta badani waxay raadinayaan xuquuq ka maqan ayaa meelaha loo taagan yahay laakiin waxaa ka horaysa inaynu horta waajibaadka diinta alle iyo qur-aanka alle ina dhex yaalla waajibaadka inaga saaran inaynu gudanno hadday tahay ducaad hadday tahay macallimiin hadday tahay waalidiin
hadday tahay siyaasiyiin hadday tahay ganacsato madax dhaqameed bahda miidiyaha kitaabka alle ayaa laynagu eegayaa halka aynu dhigno ayaa xalkeenu noqonaya say nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin ilaahay kitaabka qur-aanka dad buu kor ugu qaadaa dadna hoos buu ugu dhigaa taas aynu insha allahu tacaala hoosta ka xariiqsanno ilmaha haddaad qur-aanka kula dadaasho mustaqbalkiisa waad ka gamaysaa mustaqbalkiisa waad ka seexanaysaa hal tusaale haddaan idiin sheego dadkii ilmahooda kula dadaalay maadiga ee jaamacadaha caalamiga ka soo saaray waxaa loo dhigayaa falsafada qarbiga khulaasadeedu waxay tahay qof waliba naftiisa inuu ka fakaro waxa badanaya waalidkii inuu ilaawo oo aanu waxa weeye samafalkii iyo naxariistii looga baahnaa inuu ka tago waalidku khasaaro ku dambaynaya laakiin quraanka haddaad ku tarbiyadayso oo mar walba ku waaninaya marka xaqa alla la sheego wa'budu allaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wax layna faray tawxiidka ugu weyn ilaahay wuxuu ku lamaanayaa labada waalid hal loo samafalo waalidow danta aad ka leedahay adduunya aakhiraba umadkaaga aad ka leedahay wuxuu ku jira quraanka inaad ka buuxiso quraanka aad kula dadaasho waalidkana taasaan kula talinaya macallimiinta waxaan kaga baxaya aad waxay uga cawdaan in laga sii jeedo madaarisiga quraanka in laga sii jeedo oo dadku xaqii iskuulada ay u yaacayaan waalidku gaabis buu ku leeyahay thaqaafada bulshada faafsan qayb bay ku leedahay laakiin macallimiinta laftoodu qaybtooda ha qaataan ma aha de wixii dhacay khalada ama gaabiska yimaada qofku inuu naftiisa ka saaro innaga laynaga doonayaa haddii macallimiinta quraanka aynu nahay sidaynu waalidka iyo ubadkaba aynu u kasban lahayn quraanka u jeclaysiin lahayn wacyigelin u samayn lahayn dhaqanno wanaagsan oo soo jiita sida tiisha macallin Salmaan Sheekh Salmaan laga sheegay inaynu ku dhaqanno waajibka noocaasana inaynu inagu diraasayno walibana insha Allah taala jaamacadda najaax horana golayaashan oo kale waan uga sheegay maanka iyo maskaxdaydana ka bixi mayso in macallin quraana oo aan haysan cala al-aqal diblom tarbiya oo loogu talagalay macallimiinta quraanka jaamacadaha dunida qaar baa bixiya walibana kuwa sacuudiga qaar baa bixiya diblom ama 6 bilood ama sanada inuu macallinku qaato koorso sida ubadka loola dhaqmo loo tarbiyadeeyo macallin Salmaan laftiisu jaamacadu kama bixin ma filaya ilaahay baa ku abuuray oo dabeecadda isaga dhaliyay laakiin ninkan u dhalan inuu koorsooyinka qaato waxa weeye insha Allah taala madaaristuna jaamacadda ay ka codsato diblomooyinka in la furo manhajkeedii waa diyaarsan yahay insha Allah taala ilaahay baa mahad iska leh subhanahu wa taala kulankan barakaysan beedka barakaysan isugu keenay xafladan barakaysan ilaahay baan subhanahu wa taala ugu mahadnaqaynaa runtii de waxa marka labaad mudan mahad xafladan aynu isugu nimi maamulka macallin Salmaan caalimiinta iyo ardada intaba ilaahay subhanahu wa taala waxa leenahay Allah barakeeyo judigooda aadna leeg waxa ilaahay subhanahu wa taala haw hirgeliyo dhammaan martida ka soo qayb gashay iyagana ilaahay subhanahu wa taala khayr badan Allah siiyo waalidiintana iyagana ilaahay waxa way subhanahu wa taala Allah barakeeyo inta kadib runtii hadal de wixii la oran lahaa runtii labada sheekh baa yiri sheekh Maxamed Ali iyo sheekh Dr. Hassan Ali runtii khayr Allah siiyo way hadleen waa wanaajiyeen intaynu u baahnayn iyo in ka badan ba insha Allah taala wayna yiraahdeen runtii laba kelmadood baan anigu ishaaraya kelmadu waa kelmad runtii marka laga hadlay oo runtii aad u jeclaystay hadalka laga hadlayo ah tacaamulka ardada macallinku qaabka uu ardada ula tacaamulayo salaas runtii waa mas'alo aad iyo aad u muhiim ah waana mas'alo runtii ka maqan macallimiinta badankooda waana dhaqan de soo jiri jirayo barigoore waxa la yiraahday marka waalidku uu keeno inanka macallinka wuxuu oran jiray laftana aniga leh cadkana adiga leh marka in ilmaha qasab wax lagu baro
iyo cadaadis waa dhaqan aad moodo inuu markaa inagu siibtay dhaqan runtii fiicanna ma aha sideedabana de waxa caadi oo la og yahay dee nusuustuna ay caddaysay cunfiga iyo waxa weeyaan rifqigu inaan isku mid ahay shay kastoo cunfi la xidhiidho inuu dhibtiisa leeyahay shay kastoo rifqi la xidhiidhana inuu markaa wanaagiisa u leeyahay markaa rifqigu runtii يعني آدي آد مهم يهاي هذا معلن كتاعي يهدي والد كتاعي والد كون علة ذا والي هو حاضر كيسا هو يمكن أنت إلمها السيد دايانو حمانته السيد دايانو يعني كو إيجان ويمر قبان يا نوم مركاسي آخره قدريا مركا على كل حال وحويا تعاملك وحويا وإن أرضك سيدا سوكله مع السلام رنتي ولقوا أماني إلهي سبحانه وتعالى خير الله سيو وطبيعة لو بهين إنه ما أنت قوة دقنه أو معلمين أي كل رغمان خير جامعة النجاحنا دورين كأي بحين دونان أي إن شاء الله تعالى حوجة سعران أرنكاس سي أي نوحوجة بدله سحمرك أرض جيرة وحوي أرض كبر تعقد يدقال وحوي هذا وتمعلك ولا علوبية مدرسة ولا علوبية سامين توقرانك وكويا شاوس كيرانسا تسوية طلبات وحويان أرضاً ما أنت ده شرفت يقيمها هي مغالك وناكسن له القرآن كده ما يسي تين بدن أو غير كوده أو يقال عليك أو كواوين أو كيرير أي أدي مدحنا وديريه سروال كنا ودو بيه دحضنا ودو جسنتاي سماها أو يقال دعدو ديئة يسقوا حوش عليه هو مارته وحويا ده سيدو خانة ده وكتيره إن لا لقى أبو الربا وحلو بهي هي ترين كأه inankaasi inuu idinka khaanadiina soo galo inay yeelataan dacwadu ma aha yani waxa uu culimadu kaliya wax saaran ma dadka waaweyn oo kaliya ma dhalinyaradu iyaga maanta is saameyn badan say isu saameeyaan ama isu qanciyaan ama ay wax isaga dhageystaan iyaga ayaad moodaynaa marka aad iyo aad ay u sii weyn tahay marka inaad aad iyo aad isu xil saartaan yani ardada daadiina jiilka daadiina ee maanta runtii waxa way dhaqanka aan fiicnayn iyo kubadda iyo TV-ga iyo waxa weeyaan marka dhaqan xumada iyo cibaado xumada iyo yani waxa weeyaan marka ee quraankiyo ay ka weynaadeen inaad runtii waxa weeyaan tashkiilisaan inaad wacdidaan inaad waanisaan in masaajidada waxa weeyaan ku soo xidhaan bilcaamadaha waxa weeyaan ku soo xidhaan ayaa la idinka rabaa oo nin walowba يعني قرابات ليدهين أصحابات ليدهين درس بعد ليدهين سوق اسكو أركيسان نقولوا إنك أتقرنيس أما صاحب يعني هايدين أما درس تهين أما اسكورير تهين إن أدمرك وحويان تعوض الله ويارو مساجد ذين للسوق وحوي قليو مدارس تمرك وحويان لقول حلو إن أي اللب هي والدعوة أرنتي هذه الحوق لو صاروا معلمين تونا أي كلات ليان أرضه جانب كالدعوة يعني waxa maanta runtii daciifka ah waa dacwadii weey dareenkii dacwadeed ee qofku inuu xil dacwadeed saaran yahay ayaa maanta daciif ah sida wadeed baadee mawjada baadili maanta ina jiidanayaan ya walawla daf'u llahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadat al-ard awooda sharka hadan awood khayr oo ka hortagtaan leelin arad waa kharimaysa marka awoodii khayrka ahayd ee awooda sharka ee ka hortagi lahayd baa la inooga baahan yahay ardaduna qayb bay ka yihiin barakallahu fiikum xafladana waa ka habsaamo hadeeraanimi intii la yidhina kale waxaan u maleynayaa dee ragga halka fadhiya cid walba leeyaan hadal ku seegin waxa aan meesha laga orano imika aniga ii muuqdaana ma jiraan laakiin waa lay magacawgaas unba qof waliba macallinkii uu oranaya dabadna intaas unba meesha keentay runtii macallinkan xafladda maanta qabtay ardaydan markaa soo saaray ilaahay khayr siiyo isagii ardaydaba daaniga macallin uun baa magacu baska mala hadhi waayo horta macallinimada wuu iga horeeyo isagoo 5 sano oo dhowdhow macallin abaan anigu macallinimada bilaabay anigu 22 sano aan macallin ahaa isaguna 30 sano wax ka badan buu ahaa sidaa waxaad ku garanaysaa inuu iga weyn yahay uu iga weyn yahay isaga waa iga horeeyay marka waxaan golaan inta ku dari lahaa khayr allah siiyo culimada iyo codkarka halkan isugu yimi iyo muxuu ahaa ardayda inta meesha isugu timi waalidiinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhamaanteen waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay khayrkeena waafajiyo ardaydaas kelmadda ii muuqata wax weyn ardayda dhamaysay maanta sida ay uga duwanaan lahaayeen dadka maanta aynu haysanayna dhex jooga kelmaddan waxaan ka soo gaaray
sheekh jaamac ali cabdillah ilaahay khayr siiyo kelmadda alxaya kelmaddaas waxa weeyaan waa boogta nin walba xanuunaysa maanta waa aragteen bee'adaynu ku noolahay iyo arday dhalinyarada suuqa inoo joogta hadday tahay markaa akhlaaq hadday tahay guntigii hadday tahay timaxiirkii hadday tahay markaa maaragtay socodkii waa ogtihiin wax allaale wax lagu metelaba la garan maayo ardayda maanta kale inoo joogta xafladaha inuu qabanaana marka uu quraanka dhameeyo wuxuu sansaan eegyahay oo aad markiiba ka arkaysa calaamadihiisa isagoo wadada haya wadaduna waa wada ina wada saameysay waxaan idinkula dardaarmayaa rag waaweyn baatiin waxa laga yaabaa rag qaangaadhi inay idinku jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa haydin waafajiyo waanu idiin ducaynaynaaye wadada aa idinna aragtaan inay xun tahay waalidkuna arko inay xun tahay laydinla nacsan yahay wadadaas ka ilaaliya oo quraanka ay xifdideen ee haysaan waa fara ku hayn iyo ku dhaqan iyo meelihiisa dhul quraanku dhul gaarab iska leeyahay iyo meelihiisa hadaad maanta isiraado waad dhameysay dabadeetana hadhowta ay markaa maartaas kaga dhaqaajiso ilaahina subxaanahu wa tacaala waxa suurtagal inuu sidaa kaaga dhaqaajiyo in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadaw bihi aakhariin ilaahay kitaabkan qolana wuu ku koryeelaa baa la yidho sharaf buu ugu sameeyaa qolana ilaahay waa ku duleeyaa oo dhulku ku dhigaa ninba waa halku isu soo taago markaa idinka markaa intaasaan idin odhanaya waalidkana waxaa odhan lahaa dee kama hadhay hadhubkaysiiya dee hadday aynu soo saarno in badan aa ku soo tacabteen marka maxa weeyaan waa fara ku hayn laftigoodu weli maanta waxa weeyaan waa taqaaniinoo 20 jir loo fooldhaqaya baa ina haysta berigii horena waxaan anigu soo gaadho aan maqli jiray 15 jir ninka yar oo reer markaa ka masuula oo reer wata ayaa markaa jiri jirtay marka waa dad kala jaada inaga maanta inanka 30 jirka guriga jooga wuxuu soo haystaa inuu caruur yahay gurigoodii joogta dhibta taagan marka wax way caruurnimadii un bayna haysatee waalidkana waxaan kula dardaarmi lahaa ardayda waa farakayna sii deynina oo te kuwa marka suuqa maraya yaani marka maartay yaani ku milmino marka dhex raacin idina inta sanad kula dardaarmi lahaa waxaan ku soo gabagabeynayaa khayrka ilaahuna waafaji khayrka ilaahuna waafaji xaqana ilaahuna waafaji diinteena ilaahuna nagu sug ilaahay waxaan weydiisanaynaa sidaynu halka ugu kulanay ee isugu aragnay inuu jannada isku keento ilaahay waxaan u weydiinaynaa ardayda maanta xafladda aynu qabanay kuwa markaa diinta iyo dalka iyo dadkaba u gargaaro u hiiliyo oo markaa maaragtay ilaaliyo inuu ilaahay ka dhigo kuwa markaa maaragtay xaq ku dhaqma marka iyagu ku dhaqmaan bay ayay cid kalena wax tarayaan inuu ilaahay ka yeelo saasaan ilaahay u weydiinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam waxa weeye haddaan nahay shirkadda heeko waxaanu diyaar u nahay waxyaalaha khayraadka iyo horumarka gobolka awal waanu ka qayb qaadanaynay imikana diyaar ayaanu nahay inaanu ka qayb qaadano waxaan waxa weeye u dhaafayaa inta dee culimada hadalka dhameysay sheekh cali doctor sheekh xasan cali warsame jaamac cabdille waxa jooga oo iyaduna waxa weeye ilaahay khayr siiya iyaga inoo faahfaahiyay xaqii khayraadka xaqii waxbarashada xaqii waalidka khayrka iyaga ka hadlay marka waxa la doonayaa inaynu weelayno oo qaadano culimadu waxay noo sheegayso yaana waxa weeyaan inaan maartay aniga de waa hadal dabadii ayaan soo kacay waxa weeye hadalkuna ma badna kullu laha maqal waxa la khayrun baa laga hadlayaa halkan waanu u ducaynaynaa culimada gobolka ardada quraanka dhameysay macallinka macallin maxamuud salaamaan reegal oo shirkadda la dirisa iyo imaamka masaajidka cabdilaahi ibraahim cali oo isaguna runtii waxa weeye khayrka in badan ka shaqeeya oo dadaal badan muujiya la socda bulshada anigu waxaan ka mid ahay qaybtan customer care yaani waxa weeye wax la cabashada ama xiriirka bulshada xiriirka dadweynaha inaanu dadweynaha ka warhayno haddii xaflad khayraad qabanayaan haddii horumar laga shaqeynayo haddii garanaysaa deelayr xagga serviceka habeen iyo maalin in loo shaqeeyo loo diyaar garoobo heegan baan leenahay habeenkii waxa weeye dadka waa loo shaqeeyaa shaqaalaha gala maalintiina waa la shaqeynaya marka waa DNA 24 hour waxaanu diyaar u nahay inaanu u shaqeyno macaamiishayada oo raali gelino inaanu diyaar baanu nahay waxa weeye dhammaan waanu idin ducaynaynaa waxa weeye culimada دلنا لو جرى إلهي بأوجي أنا قلنا ودعينا يلا ورنا ما هو ذات لكن وحوي علماء ونود دعينا إلهي وحن كبرنا أرض القرآن كنا ما يسي يكوي إن كلا دجنا يا إنه إلهي القرآن كينوف يا إنجيل ووي إلهي القرآن كينوف يحفظ كيسة يكودعن كيسة
iyo macnihiisa ilaahay inuu tawayn noo faa'iideeyo yaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu maalinta qiyaamaha inoo naxariisto cifkana mada khayr qaba inaga siiyo meesha ducadaas uma kaarsanay ducada waa ducaynaynaa waxbada shirkaduhu haday shirkadaha waan hoodo si waxaan u shaqeynaa laakiin imika halkan ducadaas un baa ka midigdega marka waxaan ducaynaa ilaahay inuu aakhirana ina sharfo ifkana ina sharfo halkan foqacad saa inuu fadhina ilaahay uu qiyaamaha isku keento soo jannadiisa ina geeyo cadaabtiisana ilaahay inaga nabadgeliyo sallallahu alayhi wa sallam goobtan qayriga ay ka dhacayso xafladan lagu soo xirayo ardayda dhameysay taxfiidul quraanka wixii la oranayay culimadii baa tiri laakiin waxaan waan bogaadinayaa Sheikh Salabaan ilaahay barakeeyo waa sheekh dadaal badan sameeyay waa arkayseen mirihiisba hadeerto inoo jooga oo ilaa iyo xilligaasa ilaa 20kii oo qiirada ka muuqanaysa aad dareemayseen ardayda Sheikh Salabaan ama juhdigiisu wuxuu kala joogaa min maqribin mashqar meel kasta dibadda gudooba mirihiisu ku daadsan yihiin waxaan leenahay miisaanka xasanaadka ilaahay ku saaro bismillaahi waxaa loo gudbayaa ardayda dhameysay quraanka waxa dhameyseen wax weyn quraanka kariimku waa waxa ugu weyn waxa la barto waxa weyn weeyaan waxaan leeyahay ardayda dadaalka aad sameyseen halka kaga tagina sii wada waalidiintii juhdiga galiyay ardayda galiyay way dadaaleen ilaahay idin barakeeyo ardayga sidoo culimadu sheegtay in halka laga haro maaha waa ila si baritaaro ilaa heer jaamacadeed sida maxamed sheekh calo kale hadlayo kale ama culimadu kale in meel fara gaadhaan haddii ardayga barta laga haro quraanku waa gacan ku heen weeyaan يا حافظ القرآن هاكم فرحة فقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان يا حافظ القرآن هاكم فرحة فقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان وقضيتم الساعات في آياته ترتيلكم نبض بكل مكان همم تفاخر أمتي بسموها وعلوها عن لوثة الأدران لا نوم يغريكم ولا لهو ولا لعب مع الأنداد والأقران